بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دعوة يلي لهانتين با كنا سور دوادا مركلا يميت كمدا أو برنامج كذا قناصية يدقالها od alaaba ka daawataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland habeenka Arbacada ee Khamiista soo galeeso dawladda barnaamijkeena ganacsiga iyo dhaqaalaha ayaa barnaamij alaaba aan ugu talagalnay inaanu ku dhiirigelino ganacsatada reer Soomaaliland ee ku dhiiratay inay wadankooda maal gashadaan isla mar ahaantaasina ay wax soo saar sameeyaan si ay ugu baaqato lacagtii rooga ahayd ee wadanka ka dhoofi jirtay isla mar ahaantaasina wadanka ay lacag u soo geliyaan. ganacsigu waxa uu ka mid yahay ilaha qaybta ka ah kobaca dhaqaalaha guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. muwaadiniinta Soomaaliland iyagoo ka faa'iideysanaya siyaasadda dhaqaalaha ee dalka oo salka ku haysa nidaamka suuqa xorta ah iyo ganacsiga furan iyo xasiloonida weheshanaysa nabadda ee uu ku naaloonayo dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay suurto gelisay inay maalgashi ku sameeyaan dalkooda ganacsatada Soomaaliland iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaha kala duwan ee ka jira dalka tii ay ujeedadoodu tahay inay iyaguna ka faa'iideystaan dadkoodana uga faa'iideeyaan iyadoo ay u dheer tahay in lagaga maarmo maalgashigaasi badeecadihii dhammaanba dibadda laga soo waariday isla markaana ay lacag adagi wadanka kaga bixi jirtay taasi oo haatan u baaqata dalka halka ay shaqo abuurna ka heleen muwaadiniin aad u tiro badan. sida aynu ka warqabno wadda waxa uu horumar gaadhaa marka uu ka maarmo waxyaabaha dibadda uu ka keensado iyadoo oo wadan walbana heerka horumarkiisa iyo isku filnaanshihiisa looga miqyaas qaato hadba doorka wax soo saarkiisa gudaha wadankaasi iyo koobnaanta waxyaabaha dibadda uu uga baahan yahay. dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa muddooyinkii u dambeeyay marba marka ka dambaysa soo kordhayay warshadaha soo saara waxyaabaha kala duwan kuwaasi oo ay dalka ka hirgeliyeen muwaadiniin isku geeyay. waxaan jecelahay balow toddobaadkan barnaamijkan inaynu ku soo qaadano warshada buskudka iyo macmacaanka roodhida iyo keega ee Rersi Modern Bakery oo aanu jecelahay bal inuu warbixin kooban naga siiyo taariikhdii warshadan sida ay u sameysantay iyo maraaxilkii kala duwan ay soo martay managerka ama maamulaha guud ee shirkadda Rersi Mr. Saciid Khadar. Saciid wax warbixin kooban naga siiyo taariikhdii warshadan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. maxamed aad iyo aad baad mahadsan tahay runtii booqashadiina kooxda TV-ga qaranka Soomaaliland aad iyo aad baan uga mahad celinayaa maanta noo timaadeen. waxaan doonayaa in si kooban aan uga hadlo warshada Rersi Modern Bakery oo ah warshad cusub oo ku soo korodhay saaxadda warshadaha awal ka jiray Soomaaliland. waxaan ugu talagalay waxa weeye in aanu soo saarno in aan ummadda ma garanaysaay u soo saarno wax tayo leh oo jaban oo casriya oo cusub oo hufan oo nadaafad leh. waxaan doonayaa ummadda reer Soomaaliland inaan ku soo korno oo warshadan ujeedadeedu ay tahay in aan u sameeyno roodhi haday tahay roodhi tayo leh oo noocyo kala duwan ah. waxaan doonayaa inaan soo saarno keegagii iyo buskudiyadii oo iyaguna casriya oo cusub oo ah nooc tayo leh oo nadaafad leh oo caafimaad leh oo ka duwan waxyaabihii hore ummadda loogu soo shaqayn jiray. warshada Rersi Modern Bakery waxa la aasaasay sanadkan ku jirno bishan ku jirno horaanteedii waa 2016 bisha 10aad horaanteedii oo imika ay noqonayso in muddo 2 toddobaad baan gaadheen aanu ma garanaysaay aanu shaqaynaynay. durba markii shaqada la bilaawayna dhaqdhaqaaqeeda suuqyada waa laga dareemay waxyaabaha maartay aanu kaga duwanahay warshadaha kale waxa kamid ah warshada Rersi Modern Bakery waxa shaqaalaheeda kamid ah oo ugu jira mashiinka ugu jira ama madbaxa ugu jira niman injineer ah oo khabiir ah oo dalka dibadiisa ka soo kareysanay oo gacan yar ay u yihiin isla markaana ay la shaqeynayaan muwaadiniin reer Soomaaliland oo lagu talagalay inay ka hoos bartaan oo bari ka maalina aanu iyaga ku bedelna markay khibradda bartaan iyo waayo-aragnimada ay ka dhaxlaan. waxyaabaha kaga duwan tahay shirkadaha kale waxa kamid ah warshada Rersi Modern Bakery buskudiyada aan soo saarno kuwii hore aan soo saaray buskudka noocaasa waxa kamid ah
buskud kale noocaasa waxaa ka mid ah noocyo kale oo casriya oo aan hore dalka uga jirin oo taasi ay ka mid tahay noocaas ku xiran baalka ay ka waxaan malaynayaa noocaas waxbu dhexda ku leeyahay keega caadiga ah maaha waa keega la casriyeeyo oo qaab casriya oo sida caalamka kale loo sameeyay waxaa ka mid ah noocan isla ka kuuskuusanee oo la yiraahdo buskud abukoob koobkii lagu sameeyay ku dhex jira waxaa ka mid ah kaas balbalaaran oo inta badan lagu talagalay hablaha iyo qolooyinka VIP-da waxaan ugu talagalnay inaan ku iibino meherada waaweyn ganacsiga waaweyn iyo meelaha dadka lacagta la isugu yimaadaan boodada supermarketyada runtii de waxa kale warshadan in casri tahay ka mid ah sidaad arkaysaan kooxda TV qaana ka socota security camera ayaa ku xidhan oo meel walba waxaan ku leeyahay magaranaysa ka shaqeynaya oo meel walba taagan oo meel walba magaranaysa ka iftiimay muddadii ay warshadani jirtay waxa sheegtay inaad muddo aad u kooban qaybaha kala duwan aad sameysana aad buu u tiro baday marka maxaa kaga duwantihiin warshadihii hore u jiray miyaanay samaynin wax soo saarka caynkan oo kale waxyaabaha saan oo kale way sameeyaan laakiin si anagu waxaan doonayaa in aanu sameynay waaba la arkayba maxamedow saad arkaysidba anagu marka haddii roodhi la yidhaahdo roodhi tayo leh oo fiican oo ma garanaysaa dee aan ku badnayn baasho yiistu ku badnayn isku dheeli tiran ayaanu sameynaynaa oo miisaaman oo jaban oo nadaafad leh bogaskan oo kale weyn baan ku qaadanaa waan tusi doonaa oo loogu talagalay in lagu qaado gaariga ee aan gacanta iyadoo saa loo sida sidii jaadka aan roodhida lagu rogin dukaamada iyadoo nadaafadeedii leh oo bogaskii ku xidhan oo saasoo kale u asturan inaanu dhigno kaas waa qodobka labaad aynu kaga duwannahay waxaa ka mid ah buskudyadii iyo keegagii oo de buskudkan oo kale imika waa buskud maaragtay la farsameeyey oo wuxuu ka samaysan yahay uu yahay wax dheeli tiran oo nacfile meesha ku jiraana ay tahay meel la dhowray oo asturan bogaska ku jirtana de waxaan ku leeyahay bogaskaad arkaysaan oo ah inuu halkaa ku asturnaan karo halkaa ku jiri karo muddo 6 bilood oo waxba noqonayn oo nadaafadeedu uu haysto oo tayadeedu uu haysto oo maaragtay quruxdeedina halkaa ay ugu jirto marka laga tago productyada wax soo saarkan kala duwan ee aad sameysaan soo saartaan muddada aad jirteen waa muddo ka yar wax bil ah marka ma kula tahay inaad gaadheen halkii loo baahnaa oo customerski iyo baahidii bulshada ma leedahay markii aad suuqyadii geyseen sidee bulshadu uga falcelisay iyo dadkii meheradaha joogay maxamedow bismillaahir rahmaanir rahiim horta saad og tahayba bulshada reer Soomaaliland waa bulsho oomanayd in ay helaan wax tayo leh oo magaranaysa fiican oo casriya oo shaqaale hufan oo nadaafadeeda la ilaaliyo markiiba markaa soo bilowayna de anagoo fan ka dhiganayn bulshadu markiiba waxay noqotay kuwa ka falceliya oo si diiran uga jawaaba oo dareen farxadeed ku soo dhaweeya iyagoo maartay sheegay in ay u baahnaayeen warshad noocan oo kala oo ay u baahnaayeen warshad noocan oo kala in dalka laga hirgeliyo oo ay u baahnaayeen warshad noocan oo kala dalkooga inay uga jirto runtii waxyaabaha maartay aan doonno in maartay aanu sameeyno waxa kamid ah in bulshada dhan marka aanu gaarsiino ee bulshada dhan ay maartay wixii wada gaaraan ee miyiga magaalo tuulo iyo degmo la wada gaarsiiyo inaan noqono inaan xaraf noqono مثلا إمك تصالحان مركز القرآن جدار كذا نكون قرنا عنطو وواحد لقى مرمين مرة وواحد قفك هدو هردي هدو سوتش هدو هدو تشيفي هدو تشوجو هدو واحد برانا يو هدي مارتي كلامه يوين مارتي دمر يو رقبة واحد مسكه كومن أو قلت لك له أو وحي يكون شقينين أنا قلنا إن قلنا حروفها عنطو كمان تاي ميت كاملة إن قلنا دورنا عمر كمان رتلا صاد القاضي عنطو خيرسي مودرن بيكر لحسست qofka haduu hurdo iyo haduu soo jeedo haduu joogo iyo haduu wax baranay inta waatay in maxay yihiin qorshayaashiina dhow iyo kuwiina fog halkeed hiigsanaysan maxaad isleedin halkeed isleedin wax soo saarkiina ha gaadho waxyaabaha hiigsanayna waxa kamid ah in hadii dalka laga baxayo iyo hadii la soo galayba cuntooda aan diyaarno oo tan oo kale imika dadku xataa waxay ku dhex isticmaali karaan diyaaradaha waxay ka isticmaali karaan maraakiibta awaltaas ma jirin oo in Mareykan aanu geeyno oo aanu geeyno Abu Dhabi oo geeyna Djibouti iyo meel kasta oo dadku iyagoo hudheelku iskaga jira diyaaradoodii ay isticmaali karaan sidoo kale badda dhexdeeda ku isticmaali karaan waxyaabaha higsan waxa kamid ah in aanu maartay noqono dadkeeni dad far badan waxa jira lacag haystada
laakiin lagu silciyay waxyaabo aan tayo lahayn waxyaabo aan maxay lahayn muwaadiniin baan nahay dalka u dhashay inaanu samayno wax tayo leh inaan qiimo waa laga hadli karaa laakiin inaanu samayno wax tayo leh oo fiican oo sida caalamka oo kale u shaqeeya oo sida caalamka oo kale ma garanaysaa qofkii soo gurigiisa ka jooga uu heli karo cunto isku dheeri tiran oo nadaafad leh oo tayo leh oo qurxoon oo casri ah doona wata mustaqbalka insha Allah waa tahay gabagabadii maxay tahay fariinta aad jeceshay inaad u dirto dadka ka daawanaya telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba shacbiga weynaha Soomaaliland bismillaahir rahmaanir rahiim shacbiga reer Soomaaliland guud ahaanba gaar ahaan inta ku dhaqan caasimadda Hargeysa waxyaabaha aan u dirayo halkan fariinta uga dirayo waxa kamid ah Soomaaliland way dhaqaaqday Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay wax weeye inay isla jaan qaadaan horumarka ay sameynayso oo mid tusaale ahaan Hargeysa maanta waxa laga hirgeliyay dhismayaal dhaadheer suuqyo waaweyn waxbarasho casri ah tiknoolajiyada heer gaadhay internetka iyo isgaarsiinta iyo heer gaadhay anaguna inaanu dadkii ka dhisno dhinacii magaranaysaa dee waxyaabaha asaaska u ah ee cuntada ugu horeyso inaanu ka dhisno oo aanu noqono niman magaranaysaa kaalinta buuxiya shacabweynaha reer Soomaaliland dadaalaya ee horumarka ku jira inaan horumarka maartay la sameeyno waxaan leenahay reer Soomaaliland anaguna hawshaas aan socnaa waxaan idinka filanaa wax weeye inaan soo dhaweysaan waxaan idinka filanaa wax weeye inaan waxaan maartay idin diyaarinay aan la eegtaan oo maartay aad noqotaan macaamiil cusub iyo dad aynu wada shaqeyno anagana aan noogu soo eegtaan wax tayo leh oo nadaafad leh oo casri ah oo qurxoon oo caalamka la shaqeynaya oo ay shaqaalaha ka shaqeynayaan yihiin niman magaranaysa khibrad iyo waayo aragnimo badan leh hawsha ay gudanayaan sidoo kale daawadayaal waxaan jecel lahay inaan kelmad iyo laba siino dadka ajaanibka ah iyagoo khibradda u leh isla marhaanta sin muddada badan ka soo shaqeynayay arrimahan bakariga iyo wax soo saarka warshadaha casriga ah ee macmacaanka iyo keega iyo roolida. Hi, your name? My name is John Masharia. John, how long have you been working this type of work? Master John, muddo intee leeg ayaad ka shaqeynaysay shaqadani? Okay, around over 20 years. Over 20 years. Yeah. Ilaa muddo 20 sana. So what type of product do your company produces? So what type of product do your company hadaba noocyo caynkii ah ayaad soo saartaan wax soo saarkiinu imisa nooc ka kooban yahay? Okay, the type of product I came to produce here are the cakes and biscuits and also bread. noocyada kala duwan ee warshadeedani soo saarta waa buskudka, keega iyo sidoo kale roolida. We decided to come here because also first of all there is peace and to share what we experience that I have with the Somaliland people. waxaanu halkan u nimid nabadda taala iyo inaanu la wadaagno aqoonta aanu garanayno isla mar ahaantaasina kala faa'iideysano aqoonta ay leeyihiin dadka Somaliland iyo taan anagu leenahay. So Mr. Chong, what's your messages to the viewers that are watching you now? maxay tahay fariinta aad u gudbinaysid dadka haatan ka daawanaya TV-ga? We are there for you. We have to give you what you need. We have come here so that we can give you the product that we know. Whatever we know, we shall make sure you enjoy. waxaan halkan u nimid inaanu u sameeyno dadweynaha siinana adeegyada ay u baahan yihiin iyo cuntooyinka ay u baahan yihiin wax soo saarkeegana kamid ah aad ku raaxaysan doontaan. baldugo daqaanu waa laftii dhaabarkee